qof ku tiirsan waxa jira استشارة jacaylkii qabyoobayo nasiiba qadar baajiyo qiimaad ku lahaydagtayda xasuusigu qaaliyay qiimaad ku lahaydagtayda xasuusigu qaaliyay inamadan midhiya kuwada jirno dhammaantood anigoo ku aaminay wanaagkaa istaahila adiga agteydii agjoogayga diiday orodaya nasiibka anigana ayaankay waan jeclaa waanan jecelahay laakiin isagu hadduu agteyda ku caajisay uu nolol kale xiiseeyey soo qaadan lahay laakiin hadduu soo noqon lahaa ilamaha inay suurtagal tahay laakiin hadduu soo noqon lahaa waxay ahaan lahayd maalmaha quruxda badan ee adduunka igu laaban markaad iga wareegitaan anna kaba waxidoon wehey ka xaloolgoay waayihii iluri jiray hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa watadiga way cadeen cashaqa warkiisiyo welidiisa ila araa dhaxaan walwalaayey asalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaada aad iyo aad baan idin salaaminaa meel walba daafaca caalam ku joogtaan halkaad naga daawanaysaan waa cadceed channel kusoo dhawaada youtube-keena habeen wanaagsan caawa waxaanu idin wadnaa barnaamij cusub barnaamij aanu qiimo badan hadday tahay markii kugu horeysay aadna soo booqatay fadlan subscribe noo saar like iyo comment aan nala dhaafina sidoo kale barnaamijkan waxaad ka daawan kartaan page-ka Fahad Kaariye haddii aad tahay reer Facebook barnaamijka waxa marti noogu ah ubax waa mid kamid ah dhalinyarada waqtiyadan dambe jilinka aadka caanka uga ah ubax soo dhawow sharafaytay caawinaad barnaamijka soo muuqato cadceeda waan dhowahayo cadceedna waan ku dhowey jarankiisana waan ku dhowey koley markii koobaad waa markii koobaad laakiin markii ugu dambeysay ma noqon doonto waana ku faraxsanahay adiga asxaabtaada inaan jalinkina ka samo in badan baa lagu raadinay laakiin caawa soo qabtay ugu dambeyn diyaar waa joogaa xagad naga dhumatay wallahi hargeysa weyn bay laqday aad iyo aad ubaxay haddii koley dad badan oo asxaabta kamid ah way ku garanayaan dee gabadha caanaad tahay oo waxa weeye yaa la su'aale jilinka maayade yani dadka jilinka aadka ugu fiican filmaan badan oo soo jishay marka dadka intooda way ku garanayaan waxaa laga yaabaa dadka qaar jeclaan lahaa inay jiraan yani ubax waa tuma ama halkay ku dhalatay halkay wax kusoo baratay xoogaa yar taariikhda kooban horta saa ujeedaan ubax anshax waa gabadha yarayna horta badan miskiinta waa gabarh saa laydin sheegay jilaayada ismay arkay inaan caan ahay laakiin waan rajeynaya inaan caan noqdo waxaan ahay ardayd ku jirta minaha heerkii jaamacadeed calaashaan gebagabadii usii dhow alxamdulilah noloshana hadafyo fara badan oo qurux badan kale allana ka rajeynaysa inuu rumeeyo waxa kusoo barbaaray horto inteeda ugu badan waqtiga nolosheeda ugu badan waxa kusoo qaatay Hargeysa isla haddana aan joogaa way jirtaa nolosheeda qaybo kamida oo aanan kusoo qaadan Hargeysa waagi yaranimadeedii oo xasuus gaaray gulaha markaas ubaxay jacaylkiis weyn horta waagi horeen yaraa waxna gabadh yar fariid horta imika ilaa hadda aan waxna dadka dabar nafsi kala ilaada calaashan waa fahmi ma marka waxna gabadh yar fariid oo inaha jacayl iyo waxay tahay maxad qoto waxa laga dad qaaran ay fahansiin dabar nafsika micnaha qof mas'uuliyadda naftiisu dadka qaar waxa la yiraahdaa waalidkood baa gacanta ku haya ama de anigu adu wax waalid kamid ah
laakiin qofka isagu markuu gacanta isku hayo waxbarashadiisa noloshiisa iyo halka u socday lama halka ka bilaabmay uu gacanta isku hayo marka laga tago koritaankii yaraannimo aan aad iyo aad u salaamay ayadii awgiiba soo koriya ilaa hadda ay noolyiin jacaylka barigii hore xiisoo lana jacaylka isuma fiicnaa dadka waagii hore dadkeen isnaqaani way garanayaan laakiin imika waxaan odhan karaaba malaha boqorada jacaylka noqdo jacaylka waxaan nahay wallaahi haddadanaan ku hayo kula joogo aan odhan karaa kii cilmi boodhari micnaha la odhan lahaa malaha waa dhigiis ama waa kii micnaha lagu bedeli lahaa hadduuba nahay waxay ma jira jacayl aad waxa weeye waqti badan ku bixisay oo aad rajo ka lahayd in mustaqbalka uu meel fiican ku dhamaado laakiin kaa burburay aad ku guuldareysatay wuu jiraa meelooday karta xoogaa dabcan liyubiyan kuu soo diray in badanna midhiyaa haystay isweydiin jirnay kole in badan waan micnaha dad badan way ii weydiiyeen xiriirkaasoo jira inaa micnaha waraysi ka bixino anagoo kaa bala laakiin nooma suurtagelin maanta anigoo alloona inaan calaashaan ka waramo xanuunkeeda halahaata laga qaato waxa weeyaan waxaa jirtay wiil hadda ka hor aan ahayn walaalo saaxiibo calaashaan markan kuleeya walaalaan ahayn maanu wada dhalan laakiin walaalihii of course kuwii wada dhasho kale booskii walaalkii ila dhasho kale igu jiray saaxiibkay buu ahaa dadka badanka aadka isugu dhowdhowna waxaa la idhaahdaa waa dadka xidhiidhka marka isfahmaan labada qof ay xidhiidh sameeyaan marka waagii hore asxaabbana walaaltanaan waxaa 17 May 2023 waxaa bilownay xidhiidh isagana ku horreeyey xidhiidhkii uu soo hana qaaday heer wuxuu gaadhay xataa faamilkiisa ay ogaadeen wiilka wuxuu kasoo jeeda faamil aad u wanaagsan maasha allah tabarakallah oo heladiina calashan waxaan odhan karaa hooyadii xataas xidhiidhkayga way ogey madiga ku horreeyay jacaylka mise isagaa ku horreeyay anuna aqlaadaan lahaa halkeed ku barateen hargeysa hoyga fanka iyo jacaylkan odhan karaa beriga hore xilin jir berbera hoyga jacaylka hargeysaan odhan karaa anigu waa hoyga jacaylka markaas waxaa dhacday jacaylkii adigu wuxuu soo hana qaado soo jiro sanad buu ku dhoweyay iminka waxaan odhan karaa uu qabiyo yani waad kala tegteen qofkii dabcan laakiin qofaad isfahanteen oo dadka iskaga dhowdihiin oo aad dareen dhaba isku haysaan maxaa keeni kara inaad kala tegtaan ama in xiriirkii burburo aad waqtiga dheer ku bixisay kusoo dadaasho horta ma jecelina qofkiian shalay wanaagga u hayay micnaha ahaa weelkayga walaalkay saaxiibkay micnaha xoghayaha sirahayga iyo waxyaabahayga khaaska inaan wax xun ka gudbiyo mana istaahilo runaanti markastana waxaan rajeynayaa wax wanaagsan saasay tahay haddana qofkii heerka isla soo gaadhnay xataa ay isla rajeynayna nooga qurux badan micnaha haddasaan nolosha ugu midownaynan mid kasta qurux badan rajeysan guriga reer samaysaan dabcan koley waxa nolosha loo wada ordaa guri negiyo taag buuri nimcan hilaac koley waxaa jirta bakteeriyada caashaqoo markasta jacayl kastoo laba qof oo isjecel dad la dhaho bakteeriyada caashaqoo jacaylka bakteeriya ku noqda ayaa jira walow inankaas uu kasoo jeeday faami aad u wanaagsan oonan marnaba dhaliiliga mudan dad aad u wanaagsan xataa heer ay walaalihii markaan isku dhacna issukaayo micnaa dhexdeeda soo geli jireen ay gaadhay saasoo ayadadana baan odhan karaa jacaylkaasi uu khasaaray uu qabiyobo kowna muu ku baabi'in labana kumuu baabi'in saddexna kumuu baabi'in tiraba 3 jeer buu xidhigaygu intuu micnaha kala jabay haddana soo oo cisbitaalka cimar dhiile cisbitaalka booliyoga waxaan odhan karaa kamaba baxaba sanadkii u dambeeya dhaawacyadiisuna horta jacaylku markay tahay jacaylka aad buu xanuun badan uu dhib badan yahay hurdo waad isdeynaysaan farxad waad isdeynaysaan in yar waad farxsanaan in yar waad murugsanaan anuna waxaan ahay dadka yaabaha aadka ugu hinaasaha badan oo jacaylkana waxaa la dhahdaa jacaylka dhabtana hinaasuhu waa badee calaashaan maxaa la dhahay udubdhexaad saasay tahay maalinkii koowaad xiriirkayga burburay horta waxay calaashaan inuu cirku igu soo dumiba ilaahay adduunweynaha calaashaan nolosha waxay igu noqotay daqiiqadeero kooban oo faalxun oo aad u madow wiil aad u wanaagsan buu ahaa adigu markii malaha waxba way socon waayeen
xiriirkii go'ay haddana isaga 2024 bilowgiisii habeenkaas anigu waxaaban laaba sanadka baxaya tegayo xadaayad ba xusuustaada qubayo masalahan ku xusay masala fiye habeenkaas gurigaan nimi maalinkii subaxeygii sanadka cusub kowha waxa dhacday raaligelinta quruxda badan calashan maan filanin saaxiibada ayaan badan anaad salaamayo walaahi aan odhan karana waa micnaha dhakhtaradayda caashaqa qof kasta wuxuu leeyahay dhakhtar jacayl qofka markay xaalad xun taagan tahay garabkuwa qofka ku tiirsan waxa jira استشارة استشارة شو تاكسنا بلا مجرد نور اللي قلني أصحابتي نقرأ على هذا المرجين حاضر سكرتك حاضر علشان dareenka saaxiibtinimo wuxuu leeyahay dareen qofka noloshaada calashaan waxyaabaha kugu khaaska aad ku aaminayso waa qof dadka ka doorato calashaan waxaan odhan karaa waxa weyn dhakhtarka sida khaaska ii daweey calashaan anigoo maraya xaalad aanan qofka la wadaagi karin iyadoo waxay dhakhtarkayga khaaska maalin maalmaha ka mid ah habeenkaas sanadka cusub uu micnaha bilowgeyga ahayd maalinkii ayay timid way la soo hadashay mayman waxay ku tiri xaflad baa jirta walaal xaflad ma tegi kara wadiga waraysaa mana bixi karo may siro normal siga soo libso ii kaalay markaa anu waan yabana calashaan qof waxaan ahaa aad haarti baro ku ah xanuun dareemaya saasay ahayd haddana inantaasi xanuunkayga way la qaybsanaysa inta ugu badan waxay samaysay waan soo raacnay dheelkii baan imanay dhaweeyaan soo qaatan waan isugu imanay wax badan bay qarinaysay laakiin waa fahansan laakiin waxa islaha anu marnaba maan filanahayn qofkii aan kala dhammaanay ayaa maanta halkan micnaha raaligelin ku bixinayo jacaylkii dib u soo aasaasay dee jacaylkan moodayba inuu dhammaaday showga xididaa u aasnayo maalmo kalaa u qornaa qadar allaynahayd wax dhacday sidii waan yarka kaftanay waxoogaa dheelkii waan waqti waan ku yara qaadanay sidii ahayd waxa dhacday inay aan arko inay wax wado laakiin waxaan ku wiri saaxiib maxaad wadaa waxay ku tiri waxun baad iga filinaysaa calashaan waxun kama filin marnaba laakiin marnaba maan soo dhigin meesha kadib indhaha iga xidhay waxay ku tiri stiji halkan bay geysay fiidiyogana dadka quruxda badan leh ayaa ka dhacay meesha calashaan qofkaygii oon filayay calashaan haddaan xataa is aragnana dee nabadgeliye nooli kulanta islaayno nolosha maalmahaad isku kulantaan inaad caadi isu salaantaan mooyaane inaad dab kalgacayl u abuurtaan waxay ahayd dareen aad u cajiiba waxyaabaha iminka jacaylkii aanu iloobi kari lahay waxa weyn anigoo dhaawac waxaa la dhahdaa midida marka ku dhacdo iyo marka lagu celceliyo waxay xanuun badan tahay marka lagu celceliyo maalinkii koowaad aad bay xanuun badneyd waxaana rajaysanayay dee duni kale calashaan inaan iloobi doono wacnaan baan abuuranayay waxaan isku dayay inaan dadku iga dareemin because marka hataa qof midiya ku jirana cadow waxaad iska leedahay aanada xataa garanayn meel ay kasoo jeedaan meel ay kaala raaceen meel dad markaas walaahi waxbarashadeeda waan tegay jaamacadayda waxaan dhiganayay marka la garanayn macallimiintayda ardayda dabeecadda xataa way kaa bedelmaysaa cunto waad kala tegaysaan hurdo waa isdeynaysaan dadkaygan guriga ku wada noolay walaashayaan aad u salaamay raxma ibraahim axmed raxmaladan wallahi aan odhan karo waa hooyadayda labaad calashaan waxay isweydiinayaan dadkan xaafadda kula noolay maaha inaan qof walba dee minaha oo walaashaa oo kaa weynday ma odhan si jacayl u dhac sidan baa jirta dee oo dhalinyar baan nahay qof walba miiqaan buu leewa ixtiraamsa walow aanan walaashii kala xishoonba imika dee aan dee heer isla gaarin laakiin kugu cusudi waqtiyada qaar dabcan waxa dhacday adigu xiriirkii sidii uu kusoo noqday raaligelintaasaa dhacday in yar kadib haddana inankii wuxuu qaatay waxaan u qaatay walaahi igama istaahilay eri xun oo qof wuxuu ahaa haddar ka hor calaasha noloshayda ahaa udubdhexaad u ahaa qofkii udubdhexaadka waana maanta ma doonay inaan idhaahdo aboor buu noqday
oo calaashaan haa qofkii wanaagsanaa shalay ammaanayay igama istaahilo markasta riixun laakiin maalinkaa dhaawacii gaadhay wuu u jeeday haddana yar kadib xiriirkii waan gooyey okay xaalad kasta waan ku maray sidaan u soo celiyey because qofkaad jeceshay xataa marmarka qaar waxaan la yaabaa qalbiga qofka bilaadanka adigoo go-aan qaatay oo ku talagalay inaad maxaheeday iska dhaafto because qofkii waxa laga yaabaa inuu eriyada qaar ay bahdilaad yihiin oonay ku qalmin waqti xaadirkaas laakiin haddana ay nafta ku odhanayso ma iska dhaafta igaraa lahaada man jeclanan ooyo wallahi laakiin emotional baa weli waan is adkaynaya qofkii ugu talagashay inaad sidaa uu kuu daayad u daysado ammaan siiso ayaa haddana qalbigaaga wuxuu ku amrayaa inaad raaligelin weydiisato hadda iminka kugu lahaa walaal please waxaan kaa codsan inaad mar dambe hawsha aan digala hadino halkaa aynu ku dayno haddana kama maarmi karsid amarka qalbigu bilaadanku bixiyana maaha amar inagu aan joojin karno qof kastoo bilaadan oo qalbi leh oo wax jeclaan kara oo adduunka ku nool wax wuu jeclaaday ama wuu jeclaan doona ama wuu micnaa jecel yahayba intaasay qofka bilaadanka ku raqaybsay marka qof walba qalbi buu leeyahay xiriirkiisaasuu haddana ku go-ay haddana wuu soo noqday marka waxaa meeshii gashay saaxiibadeydii koowaad ku jirtay ayaanbada adigu xiriirkii mar labaad oo la soo celiyey haddadanan joogno waa markii saddexaad uu go-ay wax riisana marnaba horta eed ma lahayn waxaan ahay horta gabadh midiya ku jirta saasay tahayna anugu igama aha dhaqan xumo dadku waxay yaqaanaa soomaalidu gabadha ragga asxaabta laa inay dhaqan xun tahay laakiin anu waxaan ahay gabadh badanka nolosheeda iyadoo la halgamisa saasay tahay waxaa jira wiilal fara badan oo midiyaha ku jira inamadan midiya kuwada jirno dhammaantood maaha in labada qof laysku arka ama fidio wada duuba ama wax wada jila inay wax ka dhexeeyaan soomaalidu waxay taqaanaa ma aqaano qaadiyaasha dadka isku meheriya isku dhisa isjeclaysiya halkay ku kala nool yihiin iyo diintay haystaan dad walaaladiiyo aniga noloshaydan odhan kara waa halyeeyayaal iga dambeeyaan micnaha hadafkayga iga fikira oo inaan meel nolosha heer gaadho doonaya oon calaashaan ii arkaya walaashood ka yar ama leeg ama calaashaan anyway marnaba aan u qalmino dee qofkan walaalaan nahay waxaan ogeyn inaan isgeyn ayaa lagu odhanayaa hebel kale haa markaas waxbaa ka dhexee eeg waxa isweydiin mudan dadkii midiga ku wada jira okay kaba soo qaad iminka waa cadceed waad hor fadhidaa ma haddana inaga labadiina laga yaabo lasukan arkina fadhiyo dibna wax la odhan xidhi bay leeyihin okay hay haddana hebel kale dhammaantood markaa qofkani waxaa isweydiin mudan qofku dadkani ma bulaacada maanay calaashaan dooq lahayn qof kastaa dooq buu leeyahay intaa inaan midiyaha ku jirno dhammaantood waxaan markhaati ogahay inaan anaga marnaba waxna soo dhex mari karin iyaguna dhammaantood ay dee gabdho xidhiir leeyihiin hablaha midiyaha ku jiraana inan walbaaba ay xidhiir leedahay waxaa jira dad ayagu markooga horeba iyagoo xidhiir lahaa midiyaha soo wada galay kuwaas waa different way naga duwan yihiin markaa waxaa jirtay iminka rabadaantan aan ku guda jirno dhexdeeda ayuu xidhiirkan go-ay wax riisana oo dhohi karo calaasha waxaasa sameeyey ma jirto maadaama nahay gabadh nolosheeda ayadu hirarka nolosha kala duwan ayadu keligeed la dagaalamaysa micnaha jilaannimo miinan fanka soomaaliyeed qayb ka ahaadana uu hamigeyga ahaa ferstigii hamigeyga koobaad wuxuu ahaa weriye inaan noqdo saxafi anigoon baranin ayaan maanta saxaafad calaashan wuxun baanan odhan karin kamarad baana dubka dhatan baana qaban karin laakiin wax kastuu weriye qabtaan qaban karaa because waxay ahayd hibadeyda haldoor micnaha qof wuxuu ka dhigtaa howl mootar qof waagii yara waxaan nimca samriya ayaa ahayd micnaha howlbadar gabdhaas tv-ga daawan jira waan yara hoos fadhiisan jiray barnaamij ay leedahay waxay iimu dhaaf jiray saa darteed waxaan jeclaaday saxaafadda midiyaha adigu halkaasaan kasoo jeclaaday saxaafadda haddana markaan anigu saxaafadan arkay inaan ka shaqayn karo tv badan waan maray qofku markaanu weji lahayn amaanu caan lahayn amaan la garinahayn caqabado badan bay la kulmaan habluhu gaar ahaan oo waxa laga yaabaa inta barnaamij waxaan garanaya tv ma rabo inaan magaciisa sheego anigoo calaashaan hamigii uu igu jiro anigu igu jiro hamigii inaan noqdo dee micnaha saxafiyad oon wixii bartay tv intaasoo qof iguli barnaamijka qabo aan ka qabtay diyaar ahaa oo dad u yeedhay oo waqti ka soo baxay haddana barnaamijkooda la soo dayn that's way aan odhan karo markaas magac maan lahayn midiyaha wuxuu ahaa
inaan qayb ka ahaado hadaf aan leeyahay si aan noloshayda ugu micnaha maareeyo because waxaan jeclaan business woman noqdo businesskuna kama hado micnaha inaad ahaato qof customer leh customer dinay su'aal ku weydiiyay jacaylka aad sheegteen waqti fara badan aad soo wadeen maxay tahay sababta wax ka dambeeyay inuu dumo ama maxaa sababay inuu dumo meesha ka baxo wallaahi horto kow waxaa sababan odhan karaa sidaan horeba sheegay bakteeriyada caashaqoodada loo diray aan siri mala mushaar bay ku qaataanba wala suukin diray dadka kala dirkooga waan aaminsanahay in suuqay diray because qof wax laga yaabaa wax hadduu ka arka xataa dad qalad gasho inay iscafidaan idinku aad maxay ahayd ii sheegeen xalisitaan laakiin markuu meeshii bacteria ku jirto marka meelaad soo kala dhex galay wala suukin diray dad baa odhan doona inanka faamigiisa ama inanta faamigooda labada faami midna ma haban leh waxa weeyaan laakiin labadiina haddaad si kalsoon tihiin oo kalsoonida horta kalsooni isu qabtaan siday dadka ladii soo kala dhex galayaan xaggiisunbay mar walba xiriirka ka baaburay waayo haddaan aniga xiriirka dhamiyey gebi ahaanba siduu isagu uga dhuntan uga dhuman lahay midiina lama soo fadhiisteen kiimanaa sheekeyn aniga ku raaxaysanaya xanuunka jacaylkayga markaas oo kaas ma dhano karaa kalsooni darra xaggiisa ka timi haddana waxaan rajeynayaa mar waliba wanaag isaga wax wanaagsan baan rajeynayaa aniguna dee nasiibkay insha allah adigana wax qarqa waan ku rajeynaa qalbigana leeg qoojiyaha wuu jira jacaylka horta wiiska halbadaysaad sheegtay oo qof ad aamintay ood waxa weeye cid walba uga soo goday ood gooni u tahay ood rajooyin ka lahayd ood mustaqbalka filaysay waad cid walba u daysay oo macquula mararka qaar in qofka isfahmaydaan amba yani iskhilaaftaan markaas waxaan badan laakiin badan qaracdeeda soma waran horta xanuun weyn bay barka hore marka qofkii aad jeclayd aad cid walba uga soo goday cid keli u noqotay walba ku aamintay marka aad isku dhacdaan ama kala tegtaan xanuun jaleegu qofkaas dareemi karaa wallaahi xanuun halkan kusoo cabir karin waayo qofka nolol baad micnaha waqti kaaga lumay energy ba kaaga lumay dad baad kasoo dhex saaratay kumanaan kun oo qof oo intaas leegbad keligii ka dooratay aad tiri waxaad tahay boqorka qalbiga ama boqorada qalbigayga qofkii sidaas ahaa marka kala dhamaatiin wixii kastaaba ha dhacaan qoraalkuna waa halgiisay aad bay xanuun badan tahay qofkaas wuxuu noqdaa bukaan socod oo imika maalmo dhow mil iyo waxa isbitaalka cumar dhulle daan waxaan odhan karaa dhabdhab baan ugu jiray waan la ogeynin soma dadka meesha ugu furnay dad kamid ahayd balon kara markaas kulley wuxuu yidhi baalki weersame abwaan weersame eriye isbitaalka booliga markuu ka hadlayay wuxuu yidhi iyadoo carmalooday ama isagoo ciraystay waa intaasaad isfogataane maxibada ha ceebeen micnaha qofkii shalay aad iswadateen haddaad kala dhammaataan waxa idiin laaban ama qadarka idiin qoran idinkan kala ogeyn maaha inuu qofba qofkii kala caayo qofka haddii labadii qof iscaayaan wejiisuma dhigan hataa qadar calaf imaado iyadoo caruurle isagoo cireysta ayay jacayl haddana ku waayoobi karaan waayo jacaylka dhabti ma dhamaado waxay aan ka dhex galay waxaan soo xasuustay hees oo mursal muuse qaado waxay ka hadlaysaa marka heestaas laba qof oo yani qof saasoo kale laba qof is aaminay dabeetana mid ka midi balantii iyo xiriirkii iyo axdigii wada galeen uu ka baxay waxaan jeclaan lahaa heestaas kulli waan garanaya inaad codkaaga daabigaha loogu raaxayso okay noo qaadaya sad qalbiga nooga farafaras raalahaadi waaye heesta waxaa la yidhaha waxay ahayd magaceedii waqti طبعا waqti baa la yidhaha heestaan aad kuu dhegeystay ka midka iyo heesta kale nasiib mursal muuse inkastoo anaagiyo wehelkaa sugayo inkastoo waqtiga qaar kuweehan jiray markaad iga wareegitaan anna kaba waxidoon wehey ka xalool go'ay waayihii iluri jiray hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa
watadiga way cadeen cashaqa warkiisiyo weridiisa ila araa dhaxaan walwalaayay inkastoo waxyeeliyo ka ilaalin jiray oo dhin inkastoo wadnaha jeex kaga waabay hooyo wacan inkastoo waxyeeliyo ka ilaalin jiray oo dhin inkastoo wadnaha jeex kaga waabay hooyo wacan markaad wada jirkeeni weedadaya gardhaysaan wehewehey ka xaloolgoay waayihii lori jiray hadduu iida kaa dhigay markuu wanaag ku ekaa watadiga way cadeen cashaqa warkiisiyo weridiisa ila araa dhaxaan walwalaayay laakiin markaad mahadsanta ilaahay codka iyo caqliga waan ku barakeeyo wadna dawis waxaan odhan karaa laakiin heestaas waxay ka hadlaysaa qof micnaha le go-aan baan go-aankii waan qaatay adiguna go-aankii aad qaatay maanta waad kasoo laabatay cashaqa warkiisa iyo weridiisa ilaahay yani odigii adigu markay waxay la qaban waayey mursal musaa mar labaad wuxuu idhaahdaa anigoo ku aaminay wanaagkaa istaahila adiga agtaydii agjoogayga diidee orodaya nasiibka anigana ayaankay micnaha anu marnaba kaamaan maarmayne marka waxaad leedahay tagtay aniguna nasiibka haa adigu tagtay anu kaamaan tegine adaa tegey bal hadday tagtadaad ku tagtay nasiibka anigana ayaankay aniga iyo dee caashaqi hees baad soo xasuusay waxay u cira qaado wuxuu ka hadlaya markaa qof aaminay sax oo yani islaha kaama tegayo oo dee balan meel dhigtay laakiin qofkii sidii qofkani ka filay uu noqon waaya marka wuxuu oranaya yani isagoo rabo qofkani ka tegay qofkani isagoo qofka raba oo doonaya ayuu ka tegay marka wuxuu oranayaa anoo ku haweyn baad tagto kuna hawlgalayay irka nolosha ilaaciyay kuma hilmaamine anoo ku haweyn baad tagto kuna hawlgalayay irka nolosha ilaaciyay kuma hilmaamine isokay halebaa tiro kuma hilmaamine niyadiyo hankaadiga disho hilimatarire nasiibko hagaagiyo rajaan labta ku hayaaye ma ilaawo hawra harsamo hadalladaadii ma ilaawo hawra harsane hadalladaadii ma ilaawo hamigaan lahay wuu hirgelayaaye nafta waxaan ku haasawiyaa wallaahi cadceeda waxaan odhan karaa qalbigeygaad ka dhexaystay malaha maradano mobilkeyga haddaan hadda furo youtube dhaloorkeyga ugu jirtaa heestaas rabadaanteedii baan heestaa bartayo walaashay munafaisdiin oona isku guri joognay markaasoo meelka wada shaqaynanay heesta aad u qalqaad jirta waa jecla heesta iyaday jeclaysiisay amarka ilaahay maantana aniga baan micnaha qalbigii iyo nafta ku sasabo horta waxay walaal adduunkan wax walba dhacaan dabcan inta la nool yahay dhalinyar leeyahay qof waqti wanaagsan oo soo mari karaa marxalad xun tu fiican labadu ay soo mari karaan laakiin waxaa la isku dhaafay waa adkaysiga iyo samirka
qofka hadduu waayaha ugu samro oo waqtiga u samro oo laga baxaya طبعا waxaa laga yaabaa qalbigaaga dhaawaca adigu waxaad dareemayso anigu inaanan dareemi karin iyo dad kaloo badan oo ila mid ah أنا دريم waxaa laga yaabaa xaaladda adiga kaa ilmeysiisay yani adiga ku damqaysa dad badan oo yani ina daawan doona أنا قصة inay u qaataan ay yani amba iska jilaya ama iska kaftamaya ama yani aanay ka damqan laakiin qof walba wuxuu dareemayaa qofka hawshu ama dhibaatadu haysato baa xanuunkan dareemaya طبعا marka hore waxaa ku rajeynaya nolol qurux badan insha allah de ilaahayna garabkaaga galaya aniguna garabkaaganay horta anigu yani ma jecli dee inan walaashay in la dhigo ama dumarka in la dhowro si guud والله waxaan oran karaa ardaydoon ka dhex gale raggu dhammaantood waxay yiraahdaan inan walaashay ma jeclin in la dhigo laakiin hablaha dhammaantood waxa ku anagu ma dhigna baraga hadaba ma qaradin ku loohano minaanan arkayn ba hablaha qalbiga ka xigta mise waa idinku bacaadi yowrale horta ragguna iskuma jiraano qaar wanaagsan way jiraan qaar xun way jiraan mid baa wuxuu noloshaada ugu soo biiraya siduu kaaga ilmeysiin lahaa caashan wan arkay wallahi ragga waxaas oranaysa kolow maanay arxan lahayn hablahooga maana naxariisanin laakiin waa dhibta ma ogtahay oo qofkani waxaan wuu sii shaqaysta anu alxamdulillah horta marna nafsi ma qaadano hal mar baan noloshayda is oran karaa malaha u bixi markaasaad nafsi gashay markaana aad baan u yaraa wax jira wiil aad iga weynaa isagoona noloshu aniga ii cusub tahay primariga ku jiro isagu nin weyna dee minaha maantaan odhan kara dee maanta gabadh weyn baan laakiin maalinka nin weyn buu uu guriga waxaas diyaar waa laakiin anigu naxraabsan jirin intuu idhaahdo waan isguursanan haa odhan jiray laakiin calaashaan xiisoolaan weegahay waana yaraa caqligayguna iguma filnayn saasay tahay waan soo kobcay guriga noloshani xatoona maka fahmin markaasaan is oran karaa noloshaada markaasaad minaha yar gaftay markaana mabeen aqoonba jacayl wixii iminkana alxamdulilah waxaan ilaahay ugu mahadcelinay inaan horta xidhiirkii quruxda badnaa ee intaasoo dhan micnaha dhidibada loo aasay micnaha dee xidada loo adkeynay inaan anu marnaba eed ku lahayn nafsinaan iga raacayn alxamdulilah xanuunkiisa iyo dhaawiciisana anigu aan la noolaan doono waxay aan kaa dhex galay qofka aad jeclayd ama aad jeclaydeen aan idhaahdee haddii maanta kuu soo noqdo ku iraado waxaan doonaya jacaylkeena inaynu soo celino ama inay jacaylkeenii noloshii inaga burburtay aan saxno waxay qalad inaga dhacnay bilaadan baynu nahay aynu meesha ka saarno maxaa dhihi lahay horta waa laba mid marxaladan hadda ku jiro mise anoo marxaladan ka baxayo boogahayga dhadi horta anoo boogahayga dhadi waa micnaha waa another different kala la odhan karaa laakiin haddada joogo hadda anigaaba laba wallaahi dee horta ma fiicna igama aha jiljileec laakiin qalbigayga wuxuu ii sheegay runtaabaan sheegayaa because qofna weji kama lihi naftaydan ka hadlaya ma iyo sidii ilaahayga ogyahay qofkayga anuu eed uman geysan khaladna maan lahayn waan jeclaa waanan jecelahay laakiin isagu hadduu agteeda ku caajisay uu nolol kale xiiseeyey soo qaadan lahay laakiin hadduu soo noqon lahaa ilamaha inay suurtagal tahay laakiin hadduu soo noqon lahaa waxay ahaan lahayd maalmaha quruxda badan ee adduunka igu laaban inkastoo iminkaan maraya maalmihii noloshayda ugu madooba haddana dhabar adeegeedan leeyo maadaama anigu ahay gabadha biyo hooyisku ayo gacanta isku haysta inaan aan leeyahay hore u soco haliicin gideero kasoo nolosha kasoo adag baan soo maran halkan ka sheegi karin maanta oon fiicnin oon qurux badan inaan midiya ka sheego maaha dhaawac aniga isoo gaadhay jir ahaan laakiin qalbi ahaan isoo gaadhay oo meelo kala badan iga soo gaadhay jacayluun igama soo gaadhin oo xanuun badan oonan jeclayn duruufaha nolosha way badan kuwo badan baan kasoo gudbay laakiin waxaan odhan karaa tani waa ti ugu daray laakiin allihii jiray baa joogo mewra waa laga gudbayayo waqtigu wuu soconaya yani dhibaatooyinkii hore ama caqabadihii hore ama duruufihii hore kusoo maray si aad uga soo gudubtay baa tan looga gudbaya marka waqtigu marna ma istaagaya mar walba soconaya hayo adigoo dilinba afkii dibnaha qosta lagu qasbaa buu yiri haddii waxay aan ku dhihi lahaa qofka qasidiisana la wadaagtay qisadoo qisa aad u xun inaan dib uga celiya maraba waxaa jawiga kaa qaso haddii lagu dhihi lahaa qofka fariin markasta waan la nooleeyo waa qisaan la nooleeyo maa qisaan minaha dhaafa tan ka gudbay bay ahaan leedahay maalmahaas way xanuunaayeen maxaad ii xusuusin guriga waan la noole wax dhiba male iska hadli kartaa cadceedo haddii aan ku dhihi lahaa qofka fariin u dir maxaad u diri lahaa horta qofkii
horta fariin wanaagsan baan markasta u dirayaa kamarada horteedun maahay kamarada horteeda iyo kamarada dabadeeda iyo nolosheeda oo dhanba wax wanaagsan baan u diraya marnaba wax xun uma rajeynin afkayguna ma istaahilin erey xun idhaahdo waa kii la foola lahaa wehelkaagi shalay iyo qofkii aad iswadateen haddii aad isweydaan ha ka werin xumaatee maxuu yiri adu weligaa u ceeb qar waa laga yar wacan buuri qofkii wadnaha tabi jiray inaad micnaade laakiin qofkii qalbigaaga ku weyn hadhown haddana meelaha ka sheegta waxa leeyahay nololta ugu sarreysa xayaatada guulku waa faraxsanow anigu murugeysanay laakiin aad faraxsanow qosol ha murugoon akhriya adduunka liiban waarta ayaan ku rajeynaya mid calaashan hadday kolley baan wadigu cidlood wadigu caajistay mid calaashan iga kaa wanaagsan aan ku dhibin qalbigaaga aan marnaba xanuun soo gaadhsiinin farxad waarta ubad khayr qaba nolol qurux badan maasha allah ayaan idin rajeynaya mar walba kolley muuqaalkaygu gaari doonaa waxaan leeyahay xayaatada guulka waar mayulo insha allah adigana ilaahay nolol khayr qabtaa mar walba ilaahay lagama qodsan moogta alaka ilaahay ku kalsoon qof biniaadankaana ereyadin habeenkii message bay igula hadlay habeenkii koobaad raaligelinta bixinin niyada khayr u sheeg buu yiri waxaan ku ilaahay mar walba waan ku kalsoonay markii raaligelinta dhacday kadib buu yiri xalay maxaa leedahay waan ku kalsoonay wallaahi markaasuu maahay mar walban ilaahay waan ku kalsoonayo waxaan aaminsanahay dhaawacadan maanta marayana inay yihiin kuwo uu ii qorayso oo micnaa ay tahay inaan wax ka barto bari laga yaaba tan oo kale inaan ka digtoonaado lacala haddaan bogsoodo isla mahayna bogsanay bukaanjiif baan aani dadkana bukaan soo arkaa markas khayr baa rajeynina siduu ilaahay qoray oo qoran tahay no problem maaha inaan ahay qof jilicsan walaa qof nolosheedu yahay hilika adag baan ahay laakiin haddana qalbiga bilaadanki wuu dhaawacmaa wuu dakhramaa wuu dalooshamaa wuuna jaba hadduu qalbigaygu jabay micnaheedu maaha inaan nolosha ka dhacay laakiin weli rajaa ilaa aad iyo aad nolol qurux baa ku dambaysa waxaa jira dad badan oo ina daawan doona oo xaaladaad ku sugan tahay oo kale ku sugan dabcan wasalaame maxaad fariin u dir lahaa dadka wallaahi waxaan leeyahay dee cisbitaalka kule adigaa dareemaya xaaladaad ku jirto dad badan oo kula mid inay jiraan baa macquula laga yaabo dadka in naga dambeeya qaar kamid inay dareemayaan xaaladahan waxaan leeyahay horta cisbitaalka booliyoga waan wada joognaayey waanan kala joognaayey mar walbaanu hal fariin un baan diraya oon leeyahay qofkii aad isweydiin shalatooda iswadateen marnaba wax xunaan ka gudbinin hadduu xataa xumaan sameeyey cadaaladda nolosha waxay ku dhahaysaa qof hadduu ku xumeeyo oo de qofkani noloshaada hore ugu jiray wanaagyadii kuu samayn jiray iyo waxaad isku miisaantaa xumaanuhu kugu sameeyey hadday wanaagyadu bataan wanaagga xasuusnoo xumaanta ilow hadday xumaanuhu bataanna wanaag iyo haybad ilaahay ku siiyey wanaag ugu bedel xumaanta ku siiyey marnaba ha xumaynina de waa halkii aan mar labaad idinku celiyay weersamee isagoo cireystaa mayadoo carmalado inta saas fogataane xibada ha ceebeen yuna hadal idiga tegi waxaa wanaagsan su'aal kale aan ku weydiinayaa waxaa jira dad badan oo horta waqtiyada xiriir waxaad soo martay yani intaan la isdagaalin la iskhilaafay ka hor xiriirka wanaag iyo xumada uu leeyahay waxaa jira waqtiyada qaar nolosha kugu wacanta oo qofkaaga isfahansantihiin isku faraxsantihiin raali iska tihiin dad badan waxaa jira nolosha haddeer ku sugan ama si guud dadka xiriidhada leh maxaa fariin u diri lahayd wallaahi waxaan leeyahay horta laba kastoo xiriir ka dhexeeya xiriirkoogu daacadiya oona dee midna horta dadka badankoogu Soomaalidu dhibta kaliya ka jirtaa waxay tahay inta daacadda way yartahay laba qof hadday boqolkii qof wax laga yaabaa 10 inay daacad isku yihiin si sax ah isku soo doortaan inta kale midba mid dan horta qofna dan ha ula soconin way danta way dhamaataa adduunyo la isku maraaco dantaad leeday maanta haddana cadceedu dankaa leeyahay danku ula socdo dantii aan kula socday markay dhamaato maalinkaas ayuu ka dambaysa wax dambal ugu marka maayo laakiin hadan walaaltinimadeena waarasay jirtay weligeed ay jiraysan kugula socdo weligeed ilaa intaan ka dhimanno walaalaan ahanan marka qofka wanaag wada leeyihiin ay wax wanaagsan dhex yeelaan eed isku kalsoon tihiin eed jeceshihiin wixii horta mar walba bakteeriyada caashiq iska fogeeyay wixii idin kala dhantaalay wixii idin kala geenay hal talana waa insiin labada qof ee iyagu isjecel inaan qof u soo malqin maanta haddana anigu qof kuu soo malqo qofkayga qof u soo malqo lagu dhaha qofkaagi at least wuxuu sameeyey heer
gabadh markaan naheerka ugu xunan ka xanaqna wax weyn gabadh lama tuso xalimo geedi lama tuso anuguna waxaan odhan karaa aba kasii xad jiraa malaha hablaho hinaa si habla la siino dhan baani mala lay wadisiin haddii laygu dhahdo qofkaagii gabadh bulujkii xataa atleast sawir layga soo qaado horta wax in la hubsado qofku walaalkii mu noqon karaa qofkan sawir kaga soo qaaday marnaba waxaad ogaataa qofka kuu keeni horta inaan wanaag marwala kuu siin u xumaan kuu wado uu qofkaasi kuugu dhufto farxaddiina u kala dhantaalo waxaan uga jeedaa dad haysu soo malqini idinku waxay aad isku doorateen isku wata haddaad isku fahmi weydaan si sharaf leh oo bilaa xagxagashaa oo bilaa eeda oo bilaa xanuuna inkastoo in fiicnin malaha in la kala tagaa alla idinma kala geeyo wixii wada socdada يوم نشوف دعينا أنت وضع صوتها إسفان إن الله يدحض إسفان رجو طبعا أنت يعني قلبي ذاك دعوة عن إن الله قلبي ذا ودعوها قلبي ذا ودعوه ودقف ويسوون وحق روح عن حوجة يرو يعني نرش شوي بالعرنتين موت إن حوجة أرتو ودي بدن تهي ودي بدن تهي وقف قلبي كدعوة عن ذاتها عبادني مركو شعلك وقدعه وحتى يقف قلبي قان قاري waxaad tahay qof way arag dhammaystiran nolosha waxaad soo martay xanuuno aan xataa yaraantaadii markaad soo korisay aanad soo marin ku soo gaadhin bad martay markuu jacayl kugu dhacay qalbigeed ka qaangaadhay markaad qalbiga ka qaangaadhay jacaylada ku dhaceen aaminina in nasiib daraynu ku dhacday oo jacaylkii dee aad ku kala dhantaalay inta dhaawacuna eeginin waxaad ka baranaysaan iyo waaye aragnimadii iyo deganaantii qofku jacaylka ku dhacaana badan dadku way ka naxariis badan yihiin baan odhan karaayo wada wax dareemaya dhaawaca soo gaaraha laba qof oo isjecel markaan arko wallahi marna waan farxaa marna waan naxaa markaan farxaa waxa weeyaan markaan aan arkaygu isku farxsan haddana waxaan naxaa marka labadii qof haddana berri meelaha la wadwado iyagoo isxagxaganayo ceeb waxaasoo kale waa waxa weeyaan wax laga qurux badan yahay anuu wuxuu baan leeyahay in hadal idinka tegi intaas idigu soo kabilay waxay sheekadaadu sheeko aad xanuun badan waxaan rajeynayaa doorka dambe inuu isku nimaadno waxaan jeclaysan ka caafimaaday ka bogsaday insha allah inayna soo horfariisto insha allah walaalo hadday macquul tahay waxaan jeclaan lahaa maadaama jacaylkii qabiyoobi isdini macni laaca jacaylkii qabiyoobi basi wanaagsan inaad nala wadaagto maadaama fanaanka jalanka tahay da adigu iyo waxaan ku uri dadkan dhigaa ka codkiyo daacadceeda uuna hor fadhiyo dadkan dhigaa ka wasakheeyay fanaan may dhagahaada waxaan ku uri nuurisaa jacaylkii qabyoobayo nasiiba qadar baajiyo qiimad ku lahaydatayda xasuusigu qaaliyay qiimad ku lahaydatayda xasuusigu qaaliyay anuu diidayn qoraalka inuu qadar yahay iswaag qudhani qofkii ay jeclay wayaha kala qaliyayo wadnihii samir qaadoye qalbigii way bogsayoye dareeni qasbayayo sanada qatara darteed naftiga yeeshay quso maasanta wixii hore adiga mudan nafti weli quusnigama yeelin rajeyna in naga yeesho alla codka ku barkeen markasta kale walaalkay maadsan tahay asxaabtaadana aad iyo aad baan uga mahadcelin sida fiican inoo daawanayeen xalay jalanka kalaakiiciya oo walaalkeen oo fanaankeenii waxaan kuli waa dee waa halkaas wixii hore aad baad maadsan tahay qaawan oge qaar badan imika markay fidhiyogan daawadaan odhan doono geed bay filimaanta jiri jirto intana waa intii oo qiira jabaan horta intii qiira jabaan oo haysatayna walaalo u hayso intii run u haysatay realitiga fahansanayna fahan nolosha buuq maaha anigu qisadeeda waan idiin soo bandhigay noo mashquul may walaalayn dadka way jiraan kolley biniaadamku ma sinaa dad meelo kale wax ka fiiriya oo meel kale wax ka egaa way jiraan intaa inka badan haddii aan kusii foqo waxaa laga yaabaa anigu qolada xitaa inaynu kuleynaa macquul ubixi walaal waxaan ku rajeynaya nolol qurux badan ilahayna inuu qalbiga kuu qaboojiyo waxaan ku rajeynaya isbedel waxaan ku rajeynaya inaad hesho qof googahaaga dhaya ama qofkaagii hore inaad isfahantaan
oo mahadsantahay تشرف inay tahay caawin aad barnaamijka kasoo muuqatay oo waqtigaagana siisay waan kaaga mahadcelinaya aad baad mahadsan tahay adiga mudan barnaamijkana waxaan filayaa inuu dheeraaday intaasaan kusoo koobinaa saacad qaaliga waxaan leeyahay naga raalli haado waan ku raaxaysanayno haddaan idinku dheeraan aad iyo raalli haado aad iyo aad saacad qaaliga waxaan leeyahay barnaamijka intaas inoogu joogi doona waxna aad bay mahadsan tahay barnaamijkan mid lamid intaan ku gulmi doono saasaan idinkaga tegaynaa barnaamijka waxaad ka daawan kartaan youtube-keena Cadceed channel sidoo kale facebook haddaad joogtaan ciyaal facebook tihiin waxaad ka daawan kartaan pageka Faad Kaariye aad baan idin salaaminaa saaxiibayaal ciddii u baahan in qisooyinkan oo kale haysa aynay soo bandhigaan waxaanu yani u sheegaynaa inay la soo xiriiraan oo ay noo iman karaan oo nala soo fadhiisan karaan oo aan wareysan karno oo isla faqi karno oo aan wada sheekaysan karno aad baad mahadsantihiin saaxiibayaal